kulan wanaagsan asxaabta sida tooska ah noo daawanaysa waxa maanta marti noo ah Abubakar Maxamed Axmed oo culusow loo yaqaano waa majaajiliste dadka maadeeya Facebook iyo YouTube kan caan buu ku yahay Abubakar ku soo dhaw BBC laanta Soomaaliya waan dhawahay BBC waa mahadsantiin waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaadna siisay dad badan baa dabcan markay muuqaalkaaga saa u arkaan waxay xasuusanayaan waxyaabihii lagaaga bartay صح shaqadan maada iyo majaajilistanimada goormaad bilowday waxaan bilaabay sanadkii hore 2018 bartankiisa marka ilaa hadda sidaas waa wadaa xagee joogtay markaas waxaan joogay Soomaaliya maxaa kugu qaaday maxaa kugu dhaliyay inaad majaajilista noqoto haddana aad YouTube ka isticmaasho oo aad filmaan dad kale ay sameeyeen aad tarjuntood af Soomaali u bedesho horta sabab cad ma jirto oo igu kaliftay balse waan iska jeclaa inaan maartay aan sameeyo waxyaalaha dadka loogu qosliyo markaan yaraa inaan dadka qosliyaan jeclaa maartay in waxaan sheego lagu qoslaan jeclaa marka muuqaalada in codka la saaran waxaan ku arkay YouTube-ka ninkan aan codka u sameeynayo marka waan soo qaatay codkan iska saaray soo ku talagal aan ugu talagalay inaan maanta bulshada aan ka dhex noqdo ama aan lacag ka sameeyo ma ahayn ku talagal aan sameeyay waxay ahayd just for fun in dadku maaragtay waxa jeclaystay oo aad ka helaysay aan ka helay inaan sameeyo aan jeclaystay waxay wixii kugu horreeyay marka ma xasuustaa oo sameysay waxa xasuustaa muuqaalka waxa horta muuqaalkan hadda aan ku caan baxay muuqaalkii ugu horreeyay waxaan xasuustaa laakiin muuqaal aan cod saar asaga ma ahayn kii ugu horreeyay muuqaalka ugu horreeyay ninka hadda aan culusow u bixiyay Dixon la yiraahdo aan ka sameeyay waxa uu ahaa isaga iyo Duluf waxa xasuustaa marka isaga islaantiisa yaa waxay ka xadaysaa Duluf markaasuu Duluf qabanayo wuxuu leeyahay waa ku garaacaya ama lacag keen oo 2 milyan amal leeyahay bis adinaagtii oo la garaaci rabo dhulka jifto waxa imaanayno culusow imaanay warnaagta aniga naagteeda waa ii daaniyo maalinta naagta ii daaniyo naagta aan qabeeyo soo waad naagtan waa dulmi waa fiiriya CCTV na waxay xaday laptopka laga tusaa wax ma xadada ma hal laba mid waa leeyahay ina 1 milyan dhifto ina lagu dhifto 100 karbash oo saas lagu dhifto 100 karbash ma aha wuxuu leeyahay okay hadda meeqa ku dhifatay 40 lagu dhiftay meeqa dhiman 60 ana bedelayo leeyahay 60 ana ugu dhifay wala fasaxabo oo seexana marka asal garaaca alla had kii ugu horeeyay marka ku dhacdo istaaga arba waxa ayadu tudooda ma jili kartaa wallahi taas ya xagee jirto markaas Soomaaliya muqdisho ay noo jilbal marka la garaacayo islaanta la karbaashi ee lacagta hadda okay islaanta marka la karbaasho islaanta aniga ma u hadlayo waxa u hadlaya aniga culusow islaanta gabar kale ma kilaysa adiga waxaan ka dhigayaa ninkii oo Duluf oo kale Duluf say amal Duluf ma dhahay wuxuu leeyahay abtiyo say amal qoftaan xaaskeyga waay say maxaa u garaacaysaniyo markaas adiga oo kale waxa leedahay naagtan waxbay hadday fiiri meeshan amal way hadda maxaa xal aniyo maxaa sameeynaaniyo naagtan maxaa la sameeynaa wax leh markaas wuxuu leeyahay may waxa la sameeynayaa lacagtan aad bixinaysaa ama waa la garaaca codkii aan rabo inaad disho kii YouTube hadda markaas ma ahayn sida hadda aan sameeyo codkayga horta transformation ku dhacay wuu bedelay xaqiiqa because muuqaalkii ugu horreeyay kii hadda ugu dambeeyay aan sameeyay isma laha totally marka cabaar ku dhex jiray miyaa ma aqaan I don't know ana way waan u iman doonaa markuu bedelo muuqaaladan dambe si la waajili karaa si sax exactly sida oo Abubakar ninkan reer Uganda Dixon maxaad ku dooratay inaad filmaantiisa bedesho wallahi waxaan u arkay inuu funny face leeyahay asaga markii qofkii arko uu qosli karo waji ahaanta anina markaan muuqaalka aan saaro codka in codkayga iyo muuqaalkiisa ay siyaasheen inkastoo dad yar aan dhiirigelin ka helay oo dhaheen war asagiyaaba loo maleynaa saas waay hore usoo saas dhaheen so ana markaas waa sii waday ilaa iyo maaragtay ana xataa aan la qabsado ana xataa muuqaaleeda waa jeclaa inaan daawado naftirkayga marka iska duubto yes gardadi u duubto 20 jeer anoo daawano geliyo Abubakar carabka saad u keentaa Dixon waxa uu leeyahay iyo af Soomaaliga aad kor saarayso erayada farriyaha yani waxa la moodaa in asagi uu leeyahay asagi uu dhahay taas waa sir waaye waxa way aan ku sheego tusaale isaga English ku hadlaa af kalena way ku hadlaa afkiisa marka English ku hadlaayo inta badan waxaan sameeyaa English oo kale waa la geliyaa tusaale haduu yiraahdo who am I oo kale who am I al dhaha marka aan la dhaho inta kale marka afkiisa uu gashtaa asaga okay afkiisa marka director slate kuma sameeyo waxaan sameeyaa wax oo la macna noqon kara oo laakiin anagana af Soomaaligeena
la keeni karo waxa uu asaga dhahaya af ahaan dhawaaq ahaan laakiin micnihii ma bedeshid macnihii ma bedel macnihii waa sax laakiin hadda tusaale ma rabi iyo ma doonayay macnaha hal waa soo maaha laakiin qaabkee asaga ee la keenayso afkiisa macnaha oo dhaafaynin oo la keenayso Abubakar shakada u dambeysaan kusoo qabana oo saakan anigana runtii aan daawaday sax shakada baaskiilka uu wato Dixon exactly intuu meel yimaado gabadha uu shukaansanaya exactly bal noojil codkii keen bal codkii okay baaskiilka uu kasoo degaya markaas wuxuu leeyahay dulf adeerkiisa ashaal la soo duugay maanta anigana qabriga ugu tagay afar ilkooda daaba ugu jirtay ka soo siibtay iyo karfantay agarda ugu soo yaacay okay wuu fariisanaa maanta waxaan macnaha waxaan ka dhargayaa baasto waxaan ka dhargayaa jibsi iyo farajini aan ka dhargayaa anna baaya la wareerayaa iyagana odawaayay ilkaha afka dahab u galaya agarabtaa qabriga ugu tagay ilkiyaa ka soo siibtay iyo karfantay marka gabadhii ku amirnaa waxay ka dambeeyay markaas wuxuu leeyahay hay wax ma dalbatay ha ay leedahay oo ma dalbatay ha okay waaye wala qoftaa waa ka sheekeeyo nin qoftaa ma taas ugu amirtaa wala marka waxa loo keenayaa cunta loo keenayaa waa wari qoftaan suuljiniya dalbatay iyo cabitaan wax ma haysato ku amraha biiriya qoftu wuxuu wacayaa kabiiriga qofay ka hadlay leeyahay qoftaan suuljiniya biyo caadi wax la caaw maahan wax la wada baare farajini waxa uu keentaa jibsi sida alaabta ay keento ama ana ka bixinaayo then waxa ayadu soo agfriisana may waxay leedahay may waa maasanta waxba cunay wax ma cuntay ma soo agfriisa karaa ha hay soo agfriis markaas intay dhax u soo wada alaabta soo qaadanayo wuxuu leeyahay qoftaa inaa ku camirto waay maanta kal iyo laabbeena ku cabaabiriya oo soo fariisanahay qof inta ma diganta maya inta ma digana wallahi okay ina inta diganta waa malena magacii waa madax washka barsho wanaagsan qof waxa dhib balay ka dhacdo walaalkii lacagtu sameeyo lacagoo sameeyo macnaha walaalkii lacagtu sameeyo nin balay ka dhacdo waxa ahay uu leeyahay wax walba haysto maasha Allah nin wanaagsan tahay okay wuxuu leeyahay marka dalabkii waa war dalabka keena markaas leedahay may waa cunay wax bis waa u baahnaa okay mu baahnaa hadda maxay leedahay waxay leedahay waan baxaya waxa markaas wuxuu leeyahay walba dhuxul shiidan cabno oo qabo dhuxul shiidan oo qabo cab dhuxul shiidan lama cunlama shiidan oo qabo wax xagee ka keen meesha igu joojiya dhuxul shiidan iyo farajini xagee ka keen wax waa marka comedy sameynaysid shaactiro ama majaajilo marka aad sameynaysid dadku maxay ku qosli karaan ani waxaa daawadaa dhammaan comedianiska dee caalamka kuwii lagu qoslo Soomaalida mid aan fiirsan ma jirto so marka af walba wuxuu leeyahay wax oo ayaga u gaara ani laakiin waxaan runtii wax xataa Soomaalida hore ee aan iga horeysay majaajilistaasha ah ee dheheen ma ahan laakiin waxaan u arkay wax aad loogu qosli karo adaa samaystay wax lagu qosli karo kaliya marabi waxaan rabaa wax aad loogu qosli karo qosolka caadiga ma aad loogu qosli karaa waa gartay sheekada baaskiilka halkaas aan dhaafayna sheeko kale iyadana aad aan soo jeedatay sax sheekada turubka turubka Dixon intuu lacagta soo xado yes marka waxaan rabaa inaan ku bilaabno dadkana maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamij aan ugu talagalnay xirfadaada iyo mihnada iyo sida wax u abuurto ay nala daawadaan laba tarjumaad waxaad samayso waxna waa oraah afkiisa ka soo baxay yes waxna waa wax asagoo socdo aad qalbigiisa ka hadlayso okay aan macnaha asagoon hadlaynaan oo xabeeb inta exactly baltan turubka xabeebta ku bilaw okay turubka wuxuu ka bilaabanayaa saaqeysaayo qola turub dheelaysu Dixon u imaanaya ka hor intuu ay turubka u imaanin uu soo socdaa lacag meel ka soo xaday lacag meel ka soo xaday markaas wuxuu leeyahay odawaayina loo hor imaaday qabsay qaniyo kal iyo laba camal uu cunuu leeyahay 2,000 heestaa ka soo dafay waa waree meesha turub lagu dheelayaa kadib hadal ku bilaabaa meesha meel oo turub lagu caaray ma adag caadi waa fahmi meesha meel turub lagu caaray ma aha ninkan wuxuu leeyahay waraad ma dhigato wali ninkii dhiganay muqtaa dhig waa waree meesha waa la shabsanayaa lacagta oo ninkii oo cunaa markaas oo leeyahay aniga marka waa waree aniga saarto waay waa saarana wallahi waa liga cunaa yaa see camal lacagtii waa liga cunaa lacagtii uu soo xaday ninka soo saartay yuu qamaarkii ku dheelay deedna waa laga xaday waa laga cunay haddana wuxuu saartay mobilkana saarkii waa saara waa la cunaa haddana ultim wuxuu saarayaa marka mobilka lacagta saacadu saaraya mobilku saaraya waa laga cunaya kadib waxa waaye marka laga cuno leeyahay sheekada kale waxa waaye marka wax dhan laga qaatay waxaa leeyahay khasaara waa qabataan qamaar reer kaliya isla hadlay khasaara waa qabataan qamaar reer wala saaxiibka isku days saaxiibka isku days xal ay soo martay
biyaa ku cashaynay macnaha waa isku dayso dadku macnaha related waa markaa ku dhahayo muuqaaladeyda muuqaalka hore waxaan ku sheegay kanna waa ku dhex jirtaa kan kale marka waa xiriirsan yihiin marka isku days biyaan ku cashaynay ya marka muuqaal hore soo qaadanaya oo isku days ku jiray waxaan dhahay isku days saaxiibkay isku days xal isoo martii biyaa ku cashaynay macnaha casho kale ma jirin cunto ma jirin waa seexana subaxii soo kacnay joodariga xaaraga buuxo isku days oo seexana joodariga xal biyaa ku cashaynay waxa rinta geebaadeen kula saaxiib aw ya yurta guriga ugu joogtay ya yurta ayaa ku yaacaba يا يفتح في يعني ما بعد هذه مركز على isku days jid wala ya yur adiga oo xanuunsan oo baabasiir qabto aan ii joogtaa ku reysata isdaayo oo kadib baad cun oo igu cunaa leeyahay يا يفتح cunay waa gartay Abu Bakar aniga runtii iga qasday barnaamijka marta kaga jiray magacyadaas aad ku samaysaa walaalo horta wallahi magacyadaas dad badan waa ku wareersan yihiin magaca qof wax ii sheegay ma ku jiraan wax aniga marka haddaan u fakaray qofka wajigiisana aan fiiriyo wax igu soo dhac waayo wax hataa aan raadiyo ama aan qoro ama aan meel ku qoro ma aha ada alifa ana maskaxdayda ka imaada bal qaar nooga sheeg horta intaan qaar nooga sheegin mid ani soo jiitaan aad ku sheegin Saadiyo Goomey xagee ka kale Saadiyo Goomey magacaas waxaan Soomaaliya joogo markaan sameynay waxaan u sameeyay qaab macnaha markaan helnay culuso dulufna waa helnay sax soo gabadha loo baahan yahay anaguna magac u bixinin culusona adaa sameeyay dulufna adaa sameeyay duluf wiilkii ila sameynaya la dhahay waa sax naanistiis asaa lahaa soo marka aniga culuso waa helas waa ahay Soomaali oo ileen aabe awgiis waaye culuso waa haystay maadaama culuso waa haystay ninkan aan culuso u bixiyay ninkan kale magac loo bixi lahaa ninkan marka naanistiis duluf ay tahay saaxiibkii aad xamar u jooga aad ba usalaabaya ninkaas marka duluf la dhahay asaga wuxuu yiri marka duluf aniga duluf hal dhahay ma labada magac qaadano okay culuso iyo duluf ayaga ku bilaawno Soomaa gabadhiya magac la rabaa marka magacii gabadhi labada film ugu horeysay magac ma siinin anaga kadib waxaan sameeyay marka magaciya wax yar fakri waxa igu soo dhacday ma onto ma noqto magacyo badan ay igu soo dhaceen inkastoo ayaga ma onto ma noqto labadaas magac waa isticmaalay ayaga laftirkooda laakiin ma badna laakiin Saadiyo Goomey aan hadana fakray Saadiyo Goomey magacaas okay ma ana dhawa ha uu yiri tigaan siini magac ugu hore film ugu hore waa ku keenay kii kalena Saadiyo Ashun ku keenay magacyadana waa galeen ka bacdi Saadiyo Goomey Saadiyo Ashun labadaas magaca magacyada waa fani fani because unique in noqdaan al rabo ha wax bina cajiib madax washkax ka waran madax washkax mar dhow alifay intaan joogay waxay ahayd adii 3 bil aan maxaad ka wadaa madaxii la garay washkax ma ka wadaa hatta mimi I don't know hatta ariga booy washkax gabadh ila sameynaysa hatta way yaabtay habeenkaas filinka sameynayay markaan waxa waa culuso meel taagan ma culuso waxa ku bilaabanaya soo dhahay wala baahi maana istaag ina ka dhacay soo dhow la gaariga cadaayistay waa ka tacban marka gaariyo baabuur arkaas meesha taagan qafa soo socoto qofta soo socoto wixii qoftan ana ku amirto waa telefoon qabsana wuxuu leeyahay anu fiino lacag aan kugu lahaa oo dhan sadaqa u bedel xalaal alayga xarwaysa ma galanayo aan lacag mu baanay qoftu istusaayo maan qoftii imaanaysa markaas qoftii uu shaqaas ku bilaaba qofka saydiya qofta hay qof yaa iwar amala waxa leedahay ma sha Allah meelaha ma deganta meeshaan u soo magaca uu leeyahay Saadiyo dhahay Saadiyo ma uu dhahaa magacii waa madax washkax gabadhi jawaaya to istaagta muuqaalka way joojisay ما هو مدح برا لو واحد بقى أربعة واحد حد وصل عايز عاوز زيادة ماشي الحمد لله وبيسعد سيا مدح وشكح وحكوا حاجة مدح برر عشبادو معي عشبادو إذا لا هل بقال أكو كني بقال أكو ألف عشبادو حواي علسو أو حسو قرصنا ناك تمرك وبربادي واي وحليها عبتان اسمين markaas horta marka uu imaado leedahay maanta waa wareersanahay waxba ay qaldan waxba jugjug dhahay madaxna ay xanuunay marka helicopter waa wax jugjug dhahay wuxuu leeyahay ruux hadii baa doonibada ku jeclo weeyaa faadadi waxa helicopter la faad caadi waay caadi iska dhig cabitaan keen ay soo shiido leeyahay maxaa kaaga soo shiidaa watermelon dhaca watermelon marka ribadi iska dhig bogtaa watermelon wuxuu alwaax biya warba kharawaaya dhaafad أبار مركز النمركة قريه الوح مالسه مركز وشيدو لا عبتان أم بكس وشيد أم قراء أم وحي أشرحها وبحث عبتان جالاي كينو وعبها معهم بدنا واحد ذاك كيتو لكن وحلا هانت على كسر شوي هانت على كسر شوي صاحبك أنتوا لا هانت على وما أنا بسقش على كسر شفت إنا لله وإنا تعال كأنه وجدي وعرفوا يدي فيلم كنا نيجيريان كأد بدشة يوا ما يدي الرسمي أنا إسكوديس أضو بحسن إسكوديس أو بحسن حاجة كانت إسكوديس والله إسكوديس أصلا تعرف عن كذا شيء كيو نكان صور كيسة سوقات ما كهلا أصحابته يسوي دريجرين صور كيسة سوقات في فيسبوك أو صار وحدا أصحابته بيلسوا تيب نكان عرباينا بالله ما قاعد حلا بحشو
around 5000 oo comments laga bixiyay dadku comments ka bixiyaan waxay leeyihiin magacaan u bixi kan magacaan u bixi kan magacaan u bixi kan magacaan qof walba magac u sheegay aniga kulli ma qaadan marka magacyadooda dhan hataa hal xaba kama qaadan iska dhaafay waa iska dhaaf waxa u dhaafay qof oo isku magac kaale hadan magac faniyo waa ka waayay waxaan sameeyay marka maalinka duubayna marka inaan magac u bixiyo ma rabin أنا ربنا ما قاعد بحيو إلى أمريكيس بلا وراها كوب بلا وراها دا عم بحضر ضد كده بدل أي قناة سكوديس داود أو ولقي ناشيد هاي وحق درامي مركي هاي ذي أبيه يبحين سكوديس معناها سكوديس ما قاعد ماشي كوب بلا وجا بالكويا باللسه بيناي والله زي قبل بقى سكوديس بقى كود داوير ها إكزاكتلي بلا ما هو أنا بلا ما يرقى والله أنا مو فكر إنه حتى وقت قليل ما كان ساري أو يصرع أدبدو ما هسنتين داوشوا عن أبو بكر culus oo loo yaqaan marti noo aha ku taxnaada bageena YouTube-ka